السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دو channel كيغا يان قوب دونا مركلا يسكسو نقد وناكسن iyo muuqaal kale cusub hadii ay taa markii kugu horeysay oo channelkayga soo booqatay fadlan subscribe iyo kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkan waa mar kale iyo isku soo noqod wanaagsan oo xiiso badan mar dhow ilaahay haduu ka raali noqdo waxaan idin dhihi doonaa ama aan iswada dhihi doonaa Ramadaan Kariim waxaa noo soo socoto bil aad u qiimo badan maanta waxaan jeclaystay marka maadaama bisha Ramadaan ay noo soo dhowdahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala haduu naf nagu gaarsiiyo inaan idin kaga faa'iideeyo barwaaqadii aan galay bishii Ramadaan ee na soo dhaaftay sidee ayaan uga faa'iideystay ma rabtaa irsaaqad meel kala geysid inaa weysid ma rabtaa farxad meel ay ka imaatay aadan garanaynin in aad ku noolaatid ma rabtaa qalbigaagu inuu xasilooni ama damaaniina in aad ku noolaatid ma rabtaa in walwal oo dhan laga suuliyo maanta waxaan si qalbiyana kula wadaagi doonaa hadii aad ku jirtid marxalad adag hadii aad dareemaysid wax aad jeclaa lahayd ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ku siiyo hadii aad jeclaa lahayd wax ka xirxiran in ay iswada furfuraan muuqaalkan adiga ayuu kugu socdaa sida caadada ahba يعني ذكريغا قصوينكا كسابسن يعني إلهي قاببك لوغو دواانايو قابك إلهي وحوار سكرتو جنال كالي أيا إيغو فران لكن ما انت مادام بيل رمضان اي نوغسو دودهاي سمركا لو فيريانا لابدا جنال اي حوغا اي سورتقلي ويسا إنا اسكوضو بلسي هادا آرجينايو بريتو هدو إلهي اي سورتقلي إنا جنالكا كالكوسو نقضو أيا وحان جعلايستي إنا مانتا إذن كغفا إذيو وان جنال كان وليبا سوغليو دعوين aad u cajiib badan oo markii aan ku duceystay ramadaankii hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala nolosheedii uu u bedelay nolol wallahi aanan ku riyoonaynin adigana waxaan ka rajaynayaa in insha Allah biidnillah hadii aad la imaato si yaqiin ah in insha Allah biidnillah risq farxad barako nicmo awood intaba ina isku arki doontid balse intaanan muuqaalka u guda gelin saaka maxaa waagu kuugu bariyay adoo nabad qabo oo jawgaagu kaale arag yahay oo luqmatul ceeshkaaga haysto sooma soo toosin waxaa haysataa nicmo aan la soo koobi karin waxaa tiraahdaa yaa rabbi lakal xamdu walaka shukru si ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kuugu siyaadiyo inta aa haysatid waa mahadsantihiin maanta muuqaalkeenu gabi ahaanba muuqaaladii hore waa ka duwan yahay balse inta aanan u guda gelin ducooyinka aniga ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu igu tusay mucjisooyinka oo aan rabo maanta inaan idinla wadaago marka hore waxaan idin kula dardaarmayaa hadii aad rabtid noloshaadu inay kor u sii socoto maana inayna hoos u soo noqon inta aad haysatid ee ilaahay uu ku siiyay ilaahay uga mahadnaq waana balan ilaahay la in shakartum la aziidannakum ilaahay inta uu ku siiyay hadii aad uga mahadnaqdid oo aadan fiirin dadka ka sareeya oo aad fiirisid mar walba waxa aad haysatid inay jiraan dad aanan intaas bahaysan xaqiiqa waxa ah ilaahay inuu ku siyaadinayo inta aad haysatid waxaan kaloo maanta idin sii doonaa sir aad u cajiib ah aadna ii anfacday aad iyo aadna aan mar walba oo aan la kulmo aan iraa allah albaabadii nicmada soo socda allah barako iyo liibaan iyo farxad iyo irsaaqad iyo wax walbo oo aan rajaynayo ayaa ii soo socda hadii aad la kulantid cariiri ha dhibsanin hadii nolosha albaabo badan oo shala kuu furfurnaa ay xirxirmaan waxaa soo dhow faraj aad iyo aad u cajiib badan khayrka dhinaciisa le filo أيما قفك مسلم كاهي وعريرك كبطو أما الباب أفرفرنا أي كحر حرمان والله الباب ذا فرج كاسو صعدا وأنا قصيدة أنو لشي ذكو أركي بالرمضان أيا فود نوسو هيسو إلهي سبحانه وتعالى هدو نبت قليو إيا عافماد انت إسهو كان درو وبالشاسي نقمد لغو كوا إلهي وأسو تقليو إنا يقاران waxaan haysanaa nicmooyin aan la soo koobi karin
bishaasi waa bil bilaha kala dhan ka fadli badan. aniga bishii ramadaan ee lasoo dhaafay waxay ii ahayd bil bilaha kale oo dhan walba markii laga fiiriyo iiga fadli badneed, iiga nicmo badneed. marka la dhaho yacni qofku ma fiicno inuu cibaadaadkiisa yacni uu sheego, waa wax ilaahay subxaana watacaala iyo adiga idin gooni ah, laakiin adiga idaawanaayo waxaan kaaga faa'iideynayaa haddii aad rabtid inaa wax walba oo niyadaada ku jiro ay kuu suurtagalaan. waxaa ku jirto bishaas ramadaan marka weliba la afuro ee dadku sambuuska iyo bajiyaha iyo baastada iyo bariiska iyo qof walba waxa uu haysto ilaa naf maanta dhan baahneed ayaa luqunta noo surane la kala boobayo. laga yaabo xataa dadka qaar inay salaada dib ka dukadaan oo ka tagto war salaada iyo inaga tagin inta la yiraahdo miiska laga kala cararo. markaas ama xilligaas adigu 2 timir ama no astaghfirullah 2 timir lama cunee 3 timir ilaan 3 5 hal loogu talagalay mugtahay, يعني لو قمت تلاقين لبا إيه أفري إن لعنه مركا لا أفرعيه سو مركا سدح هذا تمر أفك أنت قبستي إسلام مركي ببيها جنا عبتد سلقة فريسو مركا سلادة هذا دكتيد سدح هذا واجب كإسكب حدد لبرجع راعي إلهي سيقين أو يقين أسلقة سكوفت سن وجبري مركا أي وغيرتهاي 20 دقيقة 8 دقيقة sujuudana ku duceyso adigoo sujuudsanayna duceyso baahi walba oo ilaahay u qabtid ama baahi walba oo ilaahay inuu ku hirgeliyo aad rajaynaysid salligaasi adigoo fadhiyo ilaahay ugu sheego. maanta waxaa laga yaabaa inay idaawanayaan gabdho ilmaha aanan dhaliid u haynin, gabdho ama aabooyin xataa aanan u haynin ubadkooda waxay ku ciidsiiyaan. waayo bisha ramadaan markii la soomo ciidaa ku xigto qof walba wuxuu isku diyaarinayaa ciid sanad la soo sugaaye. waxaa laga yaabaa muraadiyo badan oo ciidaasi ka weyn in aad rajaynaysid. tiktoga gal, irsaaqadu ciriiri ma kaa tahay ama irsaaqada ciriiri ma ka dareemaysaa? ducadan cajiibka ah wallaahi cajiibka ah anigan kula hadlaayo subxaan allah ducooyinka mucjisada ah mucjisooyinka ilaahay uu igu tusay wallaahi indhahayga ilmaa kusoo istaagaysa ay ducadaani ka mid tahay. xataa haddayna isugu kaag toosnayn meel aa irsaaqad ka raadisid albaab ilaahay wuxuu kuu furayaa aa irsaaqad ka raadisid. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فعجله وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. أديكو ابن آدم أباهن أيا الباب عجيب 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 وآدم كريونين أعوذها إلهي كوفر معيان واتي دعاداسي واللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فغربه وإن كان قريبا فعجله وإن عجلته فبارك فيه وأدمه يا رب العالمين. أيضا عربي أهنا إن الموقالك إذن كوسو درارجينا يا هدي أذكو قرتب دعاء الرزقنا أن واحد أقول تجيسا أما أذكيه ليسا تيك توكا دعاء والبقو أدربتد إن أذكو دعيستي أما الذكر والبقو عجيبة أو أربتد إن أذكو دعيستنا هل كاسا أقول تجيسا دعاء يعني أنا قورمي برتي دعاء يعني أنا وحن برتي حلي أكون كيجي لعقت يوسو دعيد حتى والله يجا حرمه حلي مرحلة أضك مراي حلي يعني تصور بل أكون قفول طبعا يعني مال وحوسو دعاني إلى ذا تصالحان EFC بلاس على عكو وسو دعذا بل كورن هدي EFC بلاس إلى عقتك وسو دعي جرتي وكاحرمه أما في سكار كاجي لعقت وسو دعيسي رمضان كي هرنا وإذا كبشي كي وكاحرمه meel ay lacag kuugu soo dhacdana aanan lahayn lacagtaadiina halkaasi ay ku xiranto. ducadaasi waa ducada risqa marka ayadoo taas ay iga xirneed ayaa ilaahay meel walbo iga soo geliyay. haddii aad rabtid marka risqa cariiri ah inaad ka baxdid anigaa ku faa'iiday kula hadlaayo saligaaga fidso xilli walbo ku celceli qofka sooman ducadiisa waliba waa la aqbalaa
aan ka faa'iidaysano haddii ay noqon lahayd qur-aan akhriska haddii ay noqon lahayd salaatuleylka inaan aada ugu dadaalno bisha ramadaan haddii ay noqon lahayd xilliga dadku ayagoo cuntada ay wada cunayaan adiga inta keligaa gooni usoo fariisatid meel aad ilaahay subxaana watacaala barisid waxaan kaloo idinla wadaagayaa xawlqalada aniga ereyga xawlqalada maba aqoon jirinba xataa inaan karsanayn ma u fahmay yani igama maqlaysiin waxaan anigu aqaanay un laa xawla walaa quwata ilaa billaah waa mucjiso kale wallaahi waa mucjiso kale aniga koley iska badaa wax kale ilaa yoomina haada waa ku taaganaha aad baana u jeclahay dikriga ilaahay waxyaabaha yani aan ku arkay darteed kuwa aan ugu jeclahu ka mid yahay hadda korna ma xasuusatiin waa idinla wadaagay waxaa jirtay xilli aan dan lahaa dhowr marna waa idinla wadaagay duco kaloo aada mucjiso iila noqotay oo ilaahay subxaana watacaala uu itusiyey ayaan la kulmay ducadaasi waxay ahayd xasbiya allah laa ilaaha illaa huwa calayhi tawakaltu wahuwa rabbulcarshi alcadiim wallaahi qof ama gabar aana aad u danaynaya inay ila soo xiriirto maxaa waaye taleefon iga qabato oo dan aad u adag ay iiga xirneed ayaa xilligaasi ducadaasi tigtok aan ku arkay mar alaalay markaan ducadaasi tigtok ku arkay waan aada ugu celceliyey xataa weliba fadra yar yacni waa xasuustaa qadaan sameynaaye inta alaabaha dhaqaaye jikada habaysanaaye cuntadii oo dhan karinaaye waa ku celcelinaaye wallaahi xilli adigu markaasi aa canugayga cimraan aan cunto afka u galagelinaya inay eedaan rajaynaya oo qadadili aan kariye ay tahay gabadhii ila soo xiriirto waxay ila noqoto wallaahi mucjiso wallaahi anagaa marka la fiiriyo nicmooyinka qadan maahane ilaahay agtiisa abaar ma taalo ma og tahay ilaahay subxaana watacaala inuu kaaga naxariis badan yahay hooyadaa adiga ku dhashay dadka oo yacni dadka marka la isku soo wada aruuriyo dhan waa qofka kuugu naxariis badan haddana hooyadaa haddii aad dembi ka geshid oo aad maanta tiraahdo hooyo dembigaas waa ka soo noqday hooyo mar dambe uma noqonayo hooyo qaladkaasi waa iga dhacay hooyo lagama yaabo mar kale inaa u noqdo ma kula tahay inay hooyo isla markiiba yacni inta qalbigeeda uu gadoomo yani ma kula tahay inay adkaysanayso isla markiiba qalbigeeda inta gadoomo oo isbedesho laga yaabaa inay laabta ku geliso iska badaa hooye aabe oo hooyo markii loo fiiriyo yani hooye aada u naxariis badan hooye aaba soo maahan yani aabaa xataa markaas saas tidhaahdid inkastoo aabooyin hooyooyinka ka naxariis badanba ay jiraan haddana isaguna uusan adkaysan karin inuu kusii dhagaysto maxaa u malaynaya ilaahay oo addoonkiisi tahay nicmo walbo oo aad rabtidna asaga agtiisa ay taalo ma waxay kula tahay wax aad maanta ilaahay ka bariday oo aad weliba fiiri yani ilaahay markaa baryaysid waxyaabaha aniga hadda aan bartay waxaa ka mid ah tusaale ahaan salaatuleyla soo kace waa tusaale ahaan salaatuleyl markaa soo kacay ilaahay ayaan baryey laakiin ma khushuucin khushuuc waxaa la dhahaa marka naftaada oo dhan aad soo xaadirinaysid marka ruuxdaada oo dhan aad dareemaysid in ilaahay si yani yaqiin maaragtay sida masalan oo kale yani marka qofka uu kaa soo horjeedo oo aad u ilmaysid oo aad tirahdid baaydaasa i hayso dantaana i haydo iyo qofka masalan markaa taleefon kala hadashid farqi sooma dhexeeyaan ani waxaan aaminayba marka aan si yaqiin oo khushuuca ilaahay u baryo maalinkaasi inaan baryo dhab baryootan dhab ilaahay inaan ula imaaday baxdeen waxaa dareemay يعني أو تقولي بدو عذا يعني كسو كوبي إلهيو أديك علمي بدن وحن أنكار جيناي أما أنكابر يايو إني قيل إيهين إلهو أديك أنو للشي ذا كو ذا بيبي إلهيو ما أنت وحي أن أبانا ونكو شكتي حدنا وحن يعني كو كالصونو إلهي سبحانه وتعالى حتى هدي أكو سورتك الوايو يعني إيدعي ويسو إنا إلهي وح أكبر ذي أكيلي ويدد
ha islihin ilaahay addoonkiisa uu jecel yahay ma tihid miyaa muxuu ilaahay waxaan kuu sii waaye oo qaado waxaani kow inaysan khayr ku ahayn oo qaado ilaahay inuu naftaada iyo waxa uu ku siinaayo inay kugu munaasib yihiin iyo wax walbaba ilaahay inuu kaaga cilmi badan yahay waxa aa khayr u malaynaysid waxaa suurtagala inay shar ku yihiin noocay doonaanba ha noqdaane sidoo kale waxaa suurtagala xilligaasi inuunan ilaahay kuu suurtagelin xaquusan waxaa suurtagal ah maalin ilaahay inuu kuu suurtageli doono laakiin naftaada yaysan noqonin naf weligeed ilaahay ka rajo dhigta mar walba noqo naf ilaahay subxaana watacaala ku kalsoon aaminsan boqorka dunida oo dhan leh inaa wax weydiisatay maahan adoon boqorka dunida oo dhan iska leh samada tiir la-aan abuure yacni ayaad wax weydiisatay midda kale ma rabtaa inaad yaqiinsatid waxaan aa ilaahay weydiisanaysid inay ilaahay agtiisa waxyaaro baasida inay ka yihiin aniga waxyaabaha aan sawirto waxaa ka mid ah waxaa idhaa shaydaankaa kula dagaalamaa mogtahay wuxuu ku leeyahay waxaan macquul maahan ilaahay aa weydiisanaysa inay suurtagalaan waxaan maa ilaahay la weydiistaa markaasaan waxaan idhaa fiiri ilaahay naf buu naga dhex abuuray gacan buu u suubiyey 5 farood buu u suubiyey indhuu u suubiyey ilaan ilaahay wuxuu yidhi qofkii aragtidayda rabow umistayda arag soo maahan ilaahay marka awoodihiisii aad ay u badan yihiin dunida ay yaaliin hooyo haddaad tahay weliba ilaahay awoodihiisa yacni in jir xataa shaki ma kaa galayaan waayo naf dhan inta nafti lagu afuufay oo intaan lagu afuufin naftii wadno boodbooday dhakhtarada marka kow loo tago hooyada caloosheeda ilma galaan yacni sooma arag da'aat alqalbi wax la dhaho qalbiga markuu wadnaha boodboodayo basaa la soo ogaadaa jismigii iyo wixii iyo ruuxdii iyo yacni wax badan subxaan allah ayaa waxay u soconayaan tartiib nudfatan suma calaqatan fiiri meeshaas ilaahay wax ka soo bilaabaa ma ilaahay marka candhuuf xinjir hilib yar haddana qof qurux badan isku tootoosiye aan sawirtaa ani wax ii awoodi waayo may ilaan shaydaanku wuxuu ku leeyahay ilaahay waxaa la dhahay kabta hadday kaa go-do kabta waa haddaa laakiin yaqiin la imaatid kabta hadday kaa go-do culimadan ka dhagaysta ilaahay weydiiso wallaahi suma wallaahi waa xaqiiqa soo markaa aan u soo noqdo waxaan u malaynayaa horta lamber 1 waxyaabaha aan aad u jeclahay idin sheegaa hadda abtinaaw oo aan idhaahdo lowma waxyaabahaas aadan la kulminayn ama caqabadaha marka nolosha mugtaa marka qaar caqabado noocay doonaan baa noqdaan aa ku soo wajahayo qof muslinaata maxaa kugu soo dhacaayo ilaahay u carar ayama ilaahay u carar maxaa igu soo dhacayo makase wallaahi caqabaduhu waa nicmo fiiri hadda ilaahaan baryaa waa ku xiranahay cibaadaadkayga oo dhan waa saxaa waxaan isdhahaa dembiyada iska ilaali soo ma jeclid ilaahay inuu ku jeclaado soo ma jeclid in ducadaada la aqbalo soo ma jeclid wax walba oo aad jecesha ilaahay inuu kuu suurtogeliyo dembiyada iska ilaali qof wanaagsan noqo caqabadahaas haddaysan kugu dhici lahayn aan mararka qaar isdhahaa soo lagama yaabo inay adduunyadu kula tagto oo aad istiraad wax walba waa isugu kaa toosan yihiin oo hilmaami inta lagu geliyo ilaa shaydaan nagu xiriiree aad iska noqotid qof iska hilmaamsano yacni 5 salaadood intii iska dukado iska soconayo laakiin marka caqabadaha aad la kulantid aadaad u ducaysanee ilaahaad isku xireed ilaaha dambi dhaaf weydiisanee addoon waxaad noqonee meelo badan ka toosan marka soo nicmo maahan marka caqabadaha noloshu ayna soo wajahaan haddayba noo dhaweynayaan oo ilaahay subxaana watacaala xiriirkiisa inaan qurxino ay sabab u noqonayaan caqabadaha qaar waa in alxamdulilah ilaahay oo caqabadaas inaa isoo marsiisa la dhahaa midda kale usoo noqonaya ma rabtaa farxad aanan dhammaad lahayn ma rabtaa awooda aad u dheeri ah oo meelay ka imaadeen garaweyse aniga mubaaraga caloosha iigu jira wiilkayga mubaarak waxaan ugu bixiyey xataa dhayal maaha wallaahi maanta waa idiin sir waramaa
hooya waxaan ahaa uur leh marxaladaasi waxaan jeclaa inaan businesskayga meelo badan gaarsiiyo alxamdulilah haddana sidii ayuu igu socdaa mar kalena inaan meelo badan gaarsiiyaan rajeynaa waa dareemi kartaa dharkiyaa doonee biinki meelaha kasoo gadee boordii lagu xiranaya meelaha kasoo gadee waa soo tolee sidoo kale cabaayadihii harqaan geyne waa soo jare waxaa geynaya harqaankiyaa kasoo qaade waa baceyne waa qaade boostadiyaa geyne hooyo waxaa tahay uur leh ilaahay wuxuu iga dhigay qof khafiif maanta marka la ii fiiriyo xilligaasaa ka awood badnaa waxaan ku celceli jiray oo aan aad u laasimi jiray si yaqiina weliba laa xawla walaa quwata ilaa billah caliyul cadiim hooyada weliba waad ogtihiin markay uurka leedahay aad ay emotional u tahay wax yara ka diiqadoone caqabadaha nolosha xataa hadday kugu bataa ma xamili kartid yacni wax yar oo basiid ah waxaa laga yaabaa wax weyn inay kula noqdaan soo marka ilaahay markaad tidhaahda rabbiyow xoogna ma lihi xiiladna ma lihi ilaahay gurmadkiisiyaa kuu imaanaayo ilaahay waa naxariis badan yahay wallaahi soo marka koley waxaan idinkugu sheegaayo ama aan muuqaalkan u jeclaysta ma ahan inaan sheeko un ay tahee waa inaan jeclaystay aniga inaan inta waddadaasi maray ku guulaystay nicmooyin kala kulmay idinkana aad ka faa'iidaysatiin anigana ay ii noqoto dardaaran maadaama bishii fadliga badneed ee barakada badneed ay ilaahay subxaana watacaala mar kale noo suurtageliyey in aan rajaynayno inaan yacni gaari doono aan ilaahay ka rajaynayno ma ogin moogtaa caawaa dhima karna laxdada aan la hadlaayaan dhima karaa qofka daawanaya dhima karo laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa way noo dhowdeeyay ilaahay inuu na gaarsiiyo marka dadka kale waxaan yacni nasiibaan dheernahay maanta aysan u suurtagelinayn qubuuraha ku jira marka mucjisooyin ayay ahaayeen waxaas aniga idinkaga sheekeynayo yacni markaa idinkaga sheekeynayo waa suurtagal inay xoogaa sheeko un idinla noqoto laakiin ani markaa sawirto wallaahi waa ila cajiib adigoo ka waran albaabo badan inay kaa xiran yihiin dareemaysa ee albaabo kaloo tiro badan laguu furay ee risqi cariiri aa ka dareemaysa ama meeshuu kaa soo galaya kaa xirmatee risq kale sida roobkii lagugu soo fure waa cajiib soo maahan waxay ku jirtaa marka ducadan waa cajiib waa idinkula dardaarmayaa risq haddaa rabtiin sidii roobkii inuu idinkugu imaado ducadaas ku celceliya laasima albaabada risqa idiin furmaaye anigu waxaan ka faa'iidaystay ayaa idiin soo bandhigay idinkan inaa ka faa'iidaysatiin rajaynaa tiim qisas raali noqda waa noo soo noqonaa insha allah biidni illah bisha fadliga badan ee ramadaan idinkama maqnaa doono beriyaan isku dayi doonaa inaan soo laabto insha allah biidni illah ilaahay culeysyadaha naga qaado muuqaalkii halkaasaan jeclaa inaan kusoo gabagabeeyo labadaas dikriyaan la iloobin laa xawla walaa quwata waa mucjiso sidoo kalena ducada risiqa yaana la iloobin haddaad rabtiin albaabada risiqa in la idiin furo ducadaasi laasima intaa haysatiin ilaahay uga shukriya inta idinka sarraysa ha fiirinina inta idinka hooseysa fiiriya qanaaca binafsi haddii aad rabtiin farxad aan dhammaanaynin haddii aad rabtiin inaad ku noolaatiin oo nolosha oo dhan ay nicmo idiin noqoto ilaahay mahadnaqiisa badiya waa iga dardaaran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu